waxaan rabaa horta wasaaradda caafimaadka annagoo runtii matalaynaa xukuumadda dan qaran ee Soomaaliya waxaad dareemaysaa horta hore maanta golaha wasiirada caafimaadka ee wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba in ay shaqadooda ay maanta noqotay in ay weynayaan maalinta weyn ee 10th October maalinta Mental Health Association ama cudurka dhimirka ee maskaxda muujinta ay muujinayso boqolkiiba 100 precipitation-keeda horta waxay muujinaysaa ahmiyadda ay siinayso wasaaradda ahaan in mental health-ga awareness sax la helo qaybaha kale oo badan oo hadda aan ka shaqeynay mental health-ga runtii inuu hore u dhaqaaqo oo badan baa jira cudurrada mental health-ga waxyaabo badan baa keena sida hadda la sheegayay dalkeena horta hore siiba specifically oo wadan 30 sano dhibaato ku jiray shacabka Soomaaliya runtii badanaa waxaa lagu tiigsan yahay ama dal uu ku horumari karaa caafimaadkiisa iyo sidiisa kaleba social affairs-ka maadaama la dhabar u tahay ganacsato culimo shacab dhalinyaro iyo cid walba in ay muujiso in mental health-ga sector walba naga mid ah inay saameyn ay ku sameyso ayagana awareness-ka meel walba ay joogaan ay ogaadaan si hadda la sheegay inta uu noo jiro way ka yartaa inta la filayo macnaheeduna waxa weeyaan qayb walba naga mid ah saameynta ku leeyahay marka shacabka waxaan ku boorinayaa inay walaalaha garab istaagaan ogaadaan maskaxda iyo dhimirkaba inay tahay culays jira inay ka wada shaqeeyaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka maanta inay la soo qayb galay xafladda guud ahaantiinaba ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinaynaa ugu dambeyntii in ay muujiyaan dhimirka inuu yahay arrin miisaankeeda leh almost waxaa la leeyahay